xatooyeen nin xari ka baxsan waay ayaa la yiri waxa tahay madaxa maxkamadda iyo cadaaladda iyo garsoorka ninba waxa la yiri nin amiin la yiraahdo islaayeen amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay wala tukaday markii salaada laga baxay buu sheekhi ducadii bilaabay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدوب يسوق محمد حسوستي آمين سوري هو يدين وحاكو سمعي وكبح واحد شرتي شيء الصومالي وحا عانة دين قد قري قد دين قل أوكي قد كان هرتيالي إلا المركة خلافي مادو وإن دتكي لو قرق هذا صمه دينكو naturally wuxuu ku dhalaa god intuu labada lugood dambe hog ku qodo ayuu dhalihiisa ku aasa ka bacdi temperature-ka dhulka kuleylka uu mibaxa dhulka ayaa ababiya dhalaha diinka gorayadu ilmeheeda arooriday dhigtaayo aboodigu kul banaan baan ku ogeyn gorayo marka yaa khaldan يا خالدان marka dacwada yaa hor keena ka wax dulmiya ee gafka geysta ayaa inta badan dacwada ku horeeya ilaa uu og yahay wax la weydiin doono waa inuu ka sii hordagay wuxuu yiri diin baa god iga cali mooga la gabaygan cali mooga geedi wuxuu yiri diin baa god iga qaaday buu goray ku baanaay kad cadaadi bay weyday iyo guurtii hawl gale ee godka maalintuu qoday cid baan gorayba weydiin horta intaan gardaba la galin war goormaad god qodan jirtay oo diin ku haysata nacam keena khaldan hadaynaan qabanin guusha caqabadaha inaga hortaagan bay kamid tahay nin xaafadaha iyagii baba lugta kabuubiyotayo buu isaalay war maxaa ku helay soo jilibka ay wareeray marka Soomaaliga hadduu wareero waydun iga raali ahaan doontaan ummadinay horumar gaadho dhalinyartu doorka ay ku leedahay maxaa si caqabada dhalinyarta hortaagan dhalinyarta qura maaha ee bulshada dhanba maxay inoo wada hortaagan inay ummadi hana qaado amba ay horumar gaadho mawduuca buu ahaa mawduuca lady bay da'yar amba use age waxay yiraahdeen gaaladu adugu 14 ilaa 15 ilaa 35 da'da inta u dhaxaysa iyay dhalinyar iyagu yaqaan laakiin waxa professorkuna uu ka dhawaajay inan yar oo Soomaaliyeed tayadaynu dadka dheernahay oo 5 jira oo 400 oo neef oo ariya raacday oo intay saaw eegta tiraahdo nayshiina hiblaya maqan nacam tayada dadkeena aynu inagu xaqirayno inaynu dadka ka liidanayno aaminsanahay ta horumarinta u baahan waa ta dadka waaweyn waa iska daayay buu yiri professorku dhalinyarta in focuska la saaro dhalaanka in focuska la saaro la rabay waa ka saddex waxa la yiri ummadii caanaha goorma garoor la caanaha goorma subag laga helaa marka ay xasilaan ee ay garooraan ummadina goormay horumar gaadha marka ay xasisho iyo la isu geysan karaa maal iyo muruq iyo maskax la isu geysan karaa hadaba saddexda in la isu geynin caqabadaha ummadda Soomaaliyeed hortaagan maxay yihiin su'aasha isweydiinta li waa taa kow caqabadaha horumarka hortaagan waxa weey ummadda Soomaaliyeed waxa ku jira way fiicantahay ummadda Soomaaliyeed way wanaagsan tahay tanay tahay laakiin practically marka aynu istayno laalayaalow run aynu isu sheegnay laba nin baa shuura walada swadasi kulay Facebook aad ugu dhibteen baydun galin laba nin baa shuura la wada siiyay nin dhala iyo nin dhaqaba shuura la wada siiyay ka indhaha qabay wuxuu ku leexsaday indhooluhu meeluna arkayn raadi nag laakiin waa u uraya
wuxuu yidhi waryaa war baa jira suu yidhi maxaa jira suu yidhi war sankaygu hayo ee gacantaydu laada waxaan ka wadaa Soomaali way fiican tahayna waa leeyahay subax walbana waxa la sheegay war aan dhagahaygu ku farxay nacam intermis in qawl ahaan iyo ficil ahaan inaynu is ahaano horta way ga dardaaran ta aan rabo taynu ku dhaqanayna inay taa noqoto ta kale waxa jira nacayb iyo godob aanad adigu gelin oo cid kala gashay 700 sano ka hor odaye waxay isweydaarsadeen amba gacan dad ku kala dhexdhacday cid maanta joogtay inay u dhimato nimba waxa la yidhi nin amiin la yidhaabay islaayin amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay waa la tukaday markii salaada laga baxay buu sheekhi ducadii bilaabay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدو بيسوق محمد حسوستي آمين سيري هو يدين وحاكو سمعي وكبح وايس فاني سمها ومدى الصومالية دوحان دون يعين هالكن يدين كلا دردار مودلين يروي ولا ليالو آمين كيد سلايسين إيا آمين تمساجد كو هاي نوكلا صوعن هذا واكلا لوا waxa ay inaga danteenu ku jirno war walaal hal qodob hadaynu isku diidno 99 adna koodana anna iidana yaynaan iska raacin waa isfaaniso marka gudaheenu it have to be clean ta kale cidda waxa la yiraahdaa leaders ma hogaamintu waa role wuxuu nin kastaba wax laga tuugi jiray tu uu yaqaanayo tusmu uunku kala leeyahay ee teenana siman nimba waxa la yiraahdaa tooyo heerku ka gaaray xarigan kaba tolo aha kabaha xariga lagu tolo ayuu nudxada waa 3 nud xarigu 3 nud weey oo isku soo han 3 mid xada nacam xatooyo nin xarig ka baxsan waay ayaa la yiri waxa tahay madaxa maxkamadda iyo cadaaladda iyo garsoorka erga wixii xajaadana faqallo Allah una xariistay 1963 gabaygu tiriyay ee la yiraahdo tabaalaha adduun waxa ku jirta kaba tole maxkamad loo tirshay isagoo tolonka uun jeexa barbu xada xabada xariga haduu buuga teelteel u dhiga taasiya male ee in kastaba istiilo waxa taag u hidin weedo ninka kaaga togan uga tagbaantani awoodin halka hebel walaalkayba iga mudan tolkay habaar baa kaga dhacday guulna kuma gaadhaysid ilaa inta aynu qofkii saxda ahaa halkii saxda ahayd waqtigii saxda ahaa aynu la beegsanayno guul sida loo gaadhay runtii way adag tahay ta kale khilaafka iyo isku dhaca oo soo jiitama waxaan xasuustay markaan akhriyay tan odayro Soomaaliland oo kelmadda ila meerayso yaaba jiray ta kale bulshada qaybaheeda kala duwan maqaaliiro waxaan akhriyay Africa nin la yiri maxay u horumari weedayo I don't know waxay yiraahdeen Mugabe quotes Africa maxay u horumari weeday baa la yiri wuxuu yiri ninka Afrikaanki mantu ma leeyahay uu muruq leeyahay uu maskax leeyahay dalal kale u taga hantiilaheedu wuxuu tagaa buu yiri dibadda aqoon-yahankeedu wuxuu tagaa meel kale marka uu maalkii iyo muruqii iyo maskaxdii dhamaysto dhinto yiraahdaa dalkaygii hooyaha laygu aas waa qabri suu horumari waa qabri suu horumari inta aad xoog leedahay eed awood leedahay ee aqoon aad leedahay ay dadkaaga iyo diintaada iyo afkaaguba ay ku baahan yihiin ee maalinta aad maaragtay ta kale dadkeena dibadda wax ku soo barta intooda badan oo habaarka igu dhacay bullshit afrikaano nigula soo noqda ee aan tala keenin amba aqli soo kordhinin amba hooyadu ariga ka ooman yahay aan xal u wadin inta joogta oo aan isu roonayn maamulka xilka haya
oo aan go'aamadii saxda ahaa anba maaragtay awoodeedii iyo kartideedii aan lahayn iyada lafteedu waa gaababka ka mid ah degma la isku laayay practically waxyaabahan u arka degmada laba reer baa isku laayay guddoomiyihii baa lagu eedeeyey reerkiinaad la safatay qiimayntii markaan u yeedhnay baa qiimayntii la galay baa la yidhi reerkiinaad raacday guddoomiyihii isu yidhi oo hadda ayaan raaci lahaa khaladku ninkaasi jawaabtu bixiyay waa sax because reality on the ground dhulka ka dhacay buu kuu sheegay laakiin qofka maamulka ah baa loo baahan yahay inuu ka sii digtoonaado oo inuu qofkani ummadda dhexdhexaad u yahay uu labada islaynaya isagu ka mas-uul yahay marka horeba looma sheegin nabigeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam baxun lama odhane waxaa la yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq qofku xilka iyo waajibaadka ta loo dirayo in la isweydiiyaa muhiim mushaharku waa imisa howlfulintu intee in leeg bay leeg tahay haddaad ka bilowdo guul gaari maysid ta kale